dadkii ku dhaawacmay weerarkii liido ee la gaarsiiyay isbitaalka Madiina sida warbixin amuurtaasi ku saabsan noogu soo diray wariyahayaga Cabdirisaaq Aadan Qoslaaye xilli xarakada al-shabaab ay weerar ku qaadeen ku yaalay xeebta liido ee degmada Cabdicasiis gobolkan Banaadir ayaa weerarkaasi waxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayaa inta badan dhaawacyadii ka dhashay weerarkaasi la gaarsiiyay agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa saxaafadda ugu warbixiyay dhaawacyada la keenay isbitaalkaasi inta kale waxaan seexinay isbitaalka hawlihii xalan ku jirnay qaarkood ilaa saakan dhameynay adiga dhaawaca sidii hore u badnaan jiray uma badnayn 12 qof oo ahay inta aan seexinay laakiin waxaa jiray dhimasho badan oo banaanka laga keenay inay isbitaalka haraqaysay oo ahayd ilaa 10 meeyda waxaa jiro dhaawacyada jajab dhaawac abdominka dhaawacyo madaxa kuwa koomo ku jiraan waa isugu jiraan maanta dhaawacyadaasi tood xaaladooda waxa waaye shaqo hadda noo taagan oo badideena aan qabanay wixii dhimanna maanta aan sameeyno Joker oo ka mid ah waalidiinta dhashay dhaawacyadii la soo gaarsiiyay isbitaalkaasi qaarkood oo la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaya dhaawacyada la keenay isbitaalkaasi cabdi dhaawiciisa ma ahan mid oo qarax oo ku dhaawacmay waa shoot gare yani xabad ayaa lagu dhiftay xabadda meelahana loo rabay laakiin ilaahay ka badbaadiyay waxa uu dhacday korkaan cabdi lafta way jabtay lafta hoos ayay u dhacday كوما وكجرا سيدا إذن كذا عرفتين داوعي سبحان كو غاني قرح مركو داعي لين حقو كشقينا تليفوناي عندنا تليفون كان كويني مركدم تليفون كان ركلا نغا قبتين رقي قبتين waxay dhaheen wiilka waxa way wuxuu joogaa Kaysani aniga waxaan ku jirnaa xabada dhaxdeed meeshaan tagnay aniga wiilkeena soo qaadanay isbitaal waxaan keenay Madiina sidii aan ku keenay ma sha Allah dhaqaatiirta aadayna gacan qabteen isla xalay ayaan keenay isla xalay ayaa saalada la saaray hooyo Soomaaliyeed iyo ilmaheeda meesha ay ku baabeen waxa ka hartay hal gabadha kaliya ayaa inta la keenay sidoo kale meesha waxa ku dhintay gabadha adeerkeeda hooyadeeda walaalaheeda ama meesha ku baabeen cashay meesha loo keenay inay ku casheeyaan cunugtii halkan cunugtii qof ka saay ma lahan isbitaalka xaalay waxaan ku arkay wiilal badan oo la aqoonin oo isbitaalka la keenay wiil kale oo hadda asigana raaji inuu saareen u maleena oo asigana oo diaspora ah caruurtiisa hooyadiisa aabihiisa xaaska lay ku jireen moogi kulli inuu soo wada casho u keen ilaahay amarkiisa hooyadiisa aabihiisa caruurtiisa way badbaadeen asiga meesha ku burbur lugtan waxa ka gaareen madax zaa'in wax ugu gaareen marka dhibaato far badan ayaa ka dhacda meesha waa qarax haduu dhaco waa dareemi kartiin dibka meesha ka dhacayo Cabdirisaaq Aadan Qoslaaye Somali Channel magaalada Muqdisho guddiga horumarinta gobolka Mudug ayaa kulan magaalada Boosaaso kula qaatay ganacsatada gobolka Bari sida warbixin amuurtaasi ku saabsan Boosaaso nooga soo diray wariyahayaga Jaamac Dabaraani